السلام عليكم وسلامتين دبانتين وحرجنا إنا وذا في عنتهين أو عافي ما قبطان وحربا إنا فيديو كان إن شاء الله كجهلو ومحي سيسكو كول مانجر سيسكو ويب اكس يو سيسكو جابر سيسكو كول مانجر وحاواي سيرفر ابلكيشن واي runtii ku kordhisan server linux versionadii hore waxay ku dhisnaan jireen Red Hat Linux marka laakiin version 12 oo ah midka hadda socdo baryahan kii ugu dambeeyay wuxuu ku dhisan yahay CentOS oo ah nooc ka mid ah noocyada operating systemska oo Linuxka marka waa application marka ku kordhisan operating systemkaas oo Linuxka ah oo loo isticmaalo in lagu xiriiro marka serverkan wuxuu process gareeyaa isgaarsiinta telefonka iyo muuqaal maqal iyo muuqaalba iyo text ayuu process gareeyaa waxaana sameysay oo iska leh Cisco marka runtii waa server weyn waayo oo culus oo macnaha howl badan qaban karo oo ay isticmaalaan hoteelada iyo kambaniyasha waaweyn iyo dawladaha hay'adaha dawladda iyo maaragtay ganacsatada leh shaqaale badan oo u baahan telephone miiska u saaran runtii markiisa hore wuxuu ku soo bilowday le telephone nada caadiga oo deskiga u saaran qofka laakiin hadda wuxuu sameeyaa text iyo jabber kaas oo markaas ay ku xiran kartid telefonka caadiga oo mobile-ka markaas telefonkaadii miiska ku saarnaaya xafiiska wuxuu kugu soo dhacaa cell phone-kaada oo app-ka soo download gareysanay marka akana website-ka Cisco waxay ka leedahay waa ujeedaa sawirkan qof oo shaqeynayo telefonkina halkaas u yaalo waxyaalo kaleetana process gareynayo oo maaragtay fiirinayo report graphics leh iyo marka wax lagu sheegayo waxaa macnaha howlo badan u qaban karaa runtii version kala gedisan uu leeyahay iyo hanaanka loo sameeyo how to deploy waa ujeedaa how to deploy waa kana midkaana jiro oo la yiraahdo Cisco Business Edition 6000 waa physical serverka oo la taaban karo jurmiga lawa kaasa oo lagu kordhisayo wuxuuna support gareyn karaa telefonada caadiga ah ee miiska saarna iyo codecskan videoga process gareeya kamarada leh oo lagu talagalay conference roomska iyo waxyaalahaas laakiin Business Edition 6000 waxa loogu talagalay up to 1000 employees company ama hay'ad leh ilaa iyo 1000 qof Cisco Business Edition 7000 version kan wuxuu support gareyn karaa mid-size to large enterprises kambaniyasha dhexdhexaadka ilaa kambaniyasha aad ku waaweyn runtii waxaa arkay kambaniyaal ilaa 20,000 oo shaqaale ah leh oo isticmaalayo kan laakiin of course waa inaa kala jijibisidoo u kala jijibisay clusters oo ay 10,000 oo shaqaale ahba aad macnaha ku configure gareysidoo ku xirtid hal server marka dhowr server u baahan tahay laakiin wuu support gareyn karaa waan ujeedaa haddaa gadaashaas fiirisid business editionka intuu dhan yahay midkan waa 1U waxa lagu cabiro serverada markii lagu xiraayo raaga 1U waaye kan laakiin kan waan ujeedaa waa 2U server waana large enterprises midkan waxa waaye marka mid ay sidiisa ku gadan karto oo isticmaali karto Cisco HyperFlex server la yiraahdo ama Cisco UCS UCS ka waaba kamba waa UCS midkan laakiin HyperFlexiga waa mid ka yara weyn kaas oo isku xiran marka haddaa imageska fiirisid waa kana HyperFlex waa dhowr xabo waa dhowr server soo ma jeed sidiisa asagoo ahaa soo gadanaysaa oo ku xiraysa macnaha data centerkaada
buildingka kugu dhex jirto. And then waxaa jiro midkan hosted collaboration, midkan siska kuu heenayso wax kasta adiga bill unbaa lagu soo dirayaa bil kasto, billkaasaa la baxaysaa, laakiin siska taleefanadaada dhan ay ku register gareynayaan oo waxaa la yidhahdaa hosted collaboration solution. hadda markii hore dowladday isku dayayeen dowladaha inay ka gadaan, laakiin hadda aad waxaa ugu soo badanayo kambaniyaasha caadiga ah. And then waxaa jiro midkan cloudka ah oo la yidhahdo Cisco Communications Manager Cloud. midkan marka haddaa fiirisid runtii wuxuu la socdaa Webex oo aan ka hadli doono asagana, oo aan rabay inaan videogan kaga hadlo. marka Webex muxuu yahay? Webex waa application lagu shiro oo computerkaada ku xiran kartid. Literally machiintaada ku download gareysan kartaa laptopkaada ama isheeg mobile phonekaada. markaasna inta aad geliso username iyo password ay ku siiyeen baa markaas shiraysaa. waa ujeedaa hadda qof taan shiray ku jirtaa, waxay la shiraysaa saddexdan qof oo kaamiradoodii daaray iyo labadan qof oo kaamiradoodii damiyey. soo ma jeedid? marka qofkan computer uu kasoo galaya because waxaa ku garan kartaa speakerkaas yarka ee meesha ku sawiran inuu yahay speaker computer ku taagan. qofkan telephone keliyuu soo diray, sawirkiisu unbaa muuqdo. qofkan computer waaye, dadkan kaamiradooda waa dansanta. soo ma jeed? marka dadkaas intay la shirayso also waxay tusi kartaa computerkeeda waxa ay fiirinayso. marka dadkoo dhan hal meel bay wada fiirinayaan oo wadaagayaan. dadka shirka ku jiro waa kuwaana marka intay ku taxan yihiin. waa ujeedaa qofkan waa la aamusiyey, microfonkiisa waa la damiyey, ama qofka asagaa iska damiyey microfonka. waxaa laga yaabaa inuu shirka inuu un dhagadhageynayo oo uusan wax ku darsanayn asaga moogta, oo uu dhegta ka dhageysanayo. qofkan waa la aamusiyey. waa ujeedaa qofka dadkan laakiin microfonadooda waa furayin. marka intaa ka maamuli kartaa wixii wax kastoo computerkaada aad u jeedaana fiirinaysaa. marka Webexka marka wuxuu ku kordhisan yahay call manager. kambaniyaasha dhan hadda weliba COVID-19 intuu bilowday aadaa loogu shiraa Webex oo aadaa loo isticmaalaa. waa ujeedaaba dadka isticmaala waxaa kamid ah CNN iyo talk showgan comedy-ga oo la yiraahdo Jimmy Kimmel iyo Live Nation. kuwan waxay qabtaan concerts iyo waxyaalahaas, xafladaha waaweyn oo fanaaniinta ay ka heesaan dadka qabta waxyaalahaas ay ku shiraan. marka waa gadanaysaa. markaa gadatidna dadkaada baad u diraysaa, waxaa leedahay waa kana emailkiina waa ku geli kartiin. marka qiimeyntiisana waa kana sidaa u gadan kartid. hadda waaba ujeedaabo mid personal waa iska free, ilaa 100 qof baad invite garayn kartaa. 50 daqiiqana waa xadkiisa, mana duubi kartid sida ilata. laakiin kan arag midkan waa $13.50 bil kasto. waa 100 qof call in audio, dadka way soo wici karaan. haddaad duubtid meelaad ku haysataa leedahay wixii aad duubtay, shirkii aad duubtay, iyo businessyada dee waaweyn oo bil kasto $26 ilaa 200 qof ka qayb qaadan karto. 10 gig buuna leeyahay oo storage ah. single sign on waxaa waaye kambanigaada emailka lagu galaa lagu geli karaa. marka qofka hadduu kambaniga inta uu computerkiisa soo galo uu kambaniga username iyo passwordkiisa kusoo galo, ma aha inuu mar labaad Webex dhex galo. marka wakaasaa Webex wakaasaa hadda macnaha zaa'ida runtii waxaan loogu baxsaday intii uu cudurka COVID-19 ka dilaacay oo zaa'iday dadku bilaabeen inay ugu tiirsadaan, weliba inay free ka dhigaan. waxaa ku jirabtay Zoom because dad badanaa Zoom aaday moogta. okay, tan saddexaad ee rabo inaan ka hadlo waa Cisco Jabber. Cisco Jabber sida Webex camal wuxuu ku kordhisan yahay call manager. asaga xataa waxaa lagu kordhisay call managerka, waana kana asaga naftigiisa waa wax lagu shiro oona lagu jaabo. sidaana u jeedid video ahaan waa uga qaybgeli kartaa. waxaas waa simbolka kamarada. dadkan waa dadkii aad la jaadi kartay oo aad ka wici kartay. isheeg haddii aad participantski. dadkaana waa dadka contactska kugu jiro kambanigaadii. inta aad taabatid baa markaas telephone caadi aad ka darsan kartaa. calendarki waa kan, voicemailki waa kan. hadduu qof intuu numberkaada soo waco fariin kuu dhaafo halkaas aad ka dhagaysan kartaa. marka hadda waxay kusoo dareen oo cusub waa meeshaan yarta soo ma jeed telefonkaas cagaaran. waxaa la yiraahdaa waxaas phone services. phone serviceskaas waxaa waaye haddii aad ka maqan tahay dhismaha oodan joogin buildingka kambanigaada uu leeyahay ood ka soo gelaysid bannaanka, inaad weli heli kartid telefonkaadii
oo telefonka kuugu soo dhacayo inaad joogtid xafiiska dhexdiisa camal phone services alda marka waxaan isticmaalaysaa technology cusub oo ay Cisco bilowday adiga 2 sano ilaa 3 sano la soo dhaafay marka waa kana mobile and remote access marka technology aad cusub waxay ku ogolaanayaan adoo ka maqan dhismaha ina wali heli karto waxyaalihii dhismaha gudihiisa ku haysatay oo VPN aadan soo galeynin marka waa kana waa u jeedaa call manager waa kana cluster Cisco Unified Call Manager Cluster IM and the presence waxaas IM waxa laga wadaa instant messaging iyo presence Jabber key waayo kaasa marka waa kana qofkii banaanka joogay soo ma jeedid Jabber iyo Webex internetka ka soo galayaan waxay soo dhaxmarayaan company-ga firewall-kiisi server-kaanay dhaxgalayaan oo gudbayaan oo la yiraahdo Expressway Edge wuxuu gudbinaa Expressway Core wuxuu la hadlayaa call manager so marka waxyaalahan aad lagu baxday sababtoo ah qofka meeshuu doono ka soo shaqeyn karaa inuu xafiiska joogo iyo inuu ka maqan yahay runtii wax farqi ah oo u dhaxaysa male waliba meelaha Soomaaliya camal oo maaragtay nabadgelyada iska yar adag tahay aadi technologies-ka noocaan ah u fiican yihiin sababtoo ah qofka meel kastuu ka shaqeyn karaa asagoona naftiisa macnaha khatar gelinin marka waxaan rabaa episode-ka soo socday videogan inaan insha Allah kaga hadlo sida call manager loo dhiso because runtii inta aad soo dejisatid serverkaada ku dhexdhisi kartaa marka waxaan rabaa inaan laabka guriga ii yaalo aan ku dhexdhiso hadduu Allah idma insha Allah waa mahadsantihiin inaad fiirsateen videogan wassalaamu calaykum waraxmatullaah